wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland oo socdaal ku joogay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera uu heliyo taliyaha laanta socdaalka Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala madaarka caalamiga ah ee magaalada Berbera waxaana halkaas ay warbixino kala duwan ay ka siiyeen shaqaaluhu ugana xog warameen guud ahaanba sida uu u socdaan howlaha madaarku waxaana ay sheegeen in waqtigan madaarku uu isu diyaar gareynayo sidii ay diyaarado u iman lahaayeen maamulaha madaarka caalamiga ah ee Berbera iyo sidoo kale madaxa laanta socdaalka ayaa iyagu ka xog waramay howlaha madaarka ee waqtigan mudane wasiir waa madaar weyn waa madaarkaas waxa ku yaala runwayga 8aad ee Afrika ugu dheer markaan geeska Afrika dib u eegnana waa kalabaad oo bool international ma ka dheer waa madaar qaadi kara diyaaradaha waaweyn wuxuu leeyahay laba taxway iyo 5 baarkin oo nooc kasta oo faleeda fadhiisan karo waa madaar qiimo weyn ku leh geeska Afrika mudane wasiir xagga shaqaalaha madaarka ka howlgala waxa weyn 67 shaqaale oo 8 qaybood ee madaarka howlgala ay isugu jira haddaan ka hadlo ciidanka socdaalka aad bay hawshooda uga qabsadeen madaarka intii uu xidhnaa wixii yimaada way ka howlgalayeen inkastoo iminka madaar qayb cusub la sameeyay oo aan ka howlgalno oo ciidankii aan u diyaarsanay intii ka howlgali lahayd saraakiil kala duwan oo ka socday wasaaradda duulista hawada iyo qaybaha kala duwan ee uu ka howlgala madaarka caalamiga ah ee Berbera ay ka mid yihiin hay'adaha madaxa bannaan ee sida Naasha Ikawo iyo kuwa kale ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay furitaanka madaarka magaalada Berbera iyagoo sidoo kalena mahadnaq u soo jeediyay wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland taliyaha laanta socdaalka ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland Dayib Ismaan Caalin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa hadallo dardaarana u soo jeediyay guud ahaanba shaqaalaha ka howlgala madaarka caalamiga ah ee Berbera hawlihii loo baahnaa Soomaaliland iyo geeska Afrika uu guto taariikhdaas ayuu leeyahay waxaan ku hambalyeeynaa wasaaradda duulimaadka madaxdeeda wasiirku inagala joogo Farxaan Aadan Haybe sida ay uga howlgaleen nooleynta dhismahan madaarka Berbera iyo waliba dekedda Berbera sida ay uga howlgaleen inay noqoto Berberi meel tamarisa bad iyo hawadaba tamarisa oo wax weyn qaranka ku soo kordhisa wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa isaguna ka waramay ujeedada socdaalkoodan ay ku yimaadeen magaalada Berbera isagoo sheegay in waqtigan madaarku isu diyaar gareynayo sidii ay diyaarado kala duwan u iman lahaayeen sababta halkaan idinku yimina waxa weeye sidii loo sheegay inaan kormeero maadaama intaan aan shaqada xilka madaxweynuhu ii magacaabay kulli ka ceerigaawo ma tagay dadka Hargeysa waa wasaaradaydu u dhow yahay marka waxa ku xiga alxamdulillah falillahi alxamd madaarkan Berbera oo runtii madaar qaali ah waxaan oranayaa madaarka sidaa u quruxda badan ee qiimaha leh waajibkayna saaran waxa weeye inaan la timaadaan hal abuurnimo iyo curin iyo fikir iyo adkaysi shaqadu ku gaadho himladii loogu talagalay mid soo jiita shirkadaha kale annagu waan soo hubeynaynaa laakiin cidda ku haynaysa waa idinka annagu diyaarada waa soo hubeynaynaa waxaanu isku dayaynaa inaanu suurto gelinay in halka yimaadaan ha noqoto tan imanka kowda bisha idin bilaabaysa falaydada ha noqoto qaar kale madaarada Soomaaliland inay shaqeeyaan baan isku dayaynaa kuwa kalena waa booqanaya boorama ugu horeeyo burco ay ku sii xigto saasaan u wadaya insha Allah hadba waqtiga ay saamaxda way duruufta mas'uuliyadda qaran ee wasaaraddu waa ballaaran tahay intaasi kadibna wasiirka iyo taliyaha laanta socdaalka ee Soomaaliland ayaa waxay kormeer ay ku soo sameeyeen qaybaha kala duwan ee madaarku ka kooban yahay waxaana ay sheegeen in duulimaadyadii ugu horeeyay ay man doonaan bishan soo socota Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera